بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبادي داوديال ومركل iyo barnaamijkan kaga hadli doono awoodda dawladda Islaamiga ee Iran. Hadaba bal barnaamijkan waxaanu ku falanqeyn doonaa awoodda military ee ay leedahay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. Iran waxay haysataa ciidanka 610,000 oo active ah kuwaas oo diyaar ah kuna jira hawshooda shaqo ay u qabtaan dalka Iran. 350,000 waxa ay ku jiraan kaydka oo rasiif kuwaas oo marka loo baahdo shaqo gali kara. Totalka guud ee ciidanka Iran 960,000 oo askari. Hadaba Iran waxay haysataa diyaaradaha totalka guud 551 diyaaradood. Maraakiibta dagaalka waxay haysataa 101 markab. Sidoo kale maraakiibtaas waxaa ka mid ah 19 kuwa badda quusa ah. Hadaba dagaalkii ugu dambeeyay ay Iran ku qaaday Israel waxay adeegsatay 128 drones ah, 36 cruise ah iyo 110 plastic ah. Iran waa awood ciidan oo aad bariga dhexe awood ugu leh waxaanay ku jirtaa marka la qorsheeyo ama se la qiimeeyo dhammaan ciidanka adduunka kuwa 14aad ee ugu awoodda badan dunida. Populationka ama tirada dadka Iraniyiintu waa 87 milyan kuwaas oo ku dhaqan dalka gudihiisa iyo daafihiisaba. Hadaba barnaamijkeena intaas ay ku soo koobi doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.